warbixin cusub oo qoray wargeyska The Star ee ka soo baxay Nairobi ayaa waxa ishaaca ka qaadaysa walaaca Kenya ay ka qabto in Soomaaliya ay ka saarto howlgalka nabadda ee Midowga Afrika. Wargeyska The Star ee ka soo baxay magaalada Nairobi ayaa sheegay in Kenya ay cadaadis xun kala kulmayso baarlamaanka Soomaaliya oo iyagu u ololeynaya in ciidanka Kenya ay ka baxaan gudaha Soomaaliya. Wargeyska The Star ayaa soo xiganaya warbaahinta maxalliga ah ee gudaha Soomaaliya taasi oo sheegaysa in dowladda Soomaaliya ay wada xaajood kula jirto dowladaha Qatar, Turkiga, Ethiopia iyo Eritrea sidii ciidamadooda jooga gudaha Soomaaliya ay taageero ugu heli lahaayeen dhaqdhaqaaqyada lagu doonayo in ciidanka Kenya ay kala wareegaan ammaanka howlgallada AMISOM ee gudaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Jubaland. Ciidamada dowladda Kenya ayaa soo galay gudaha Soomaaliya bishii Oktoobar 16 sanadkii 2011 ka hor intaysan qayb ka noqonin howlgalka AMISOM bishii Maarch sanadkii 2012. The Star warbixin cusub oo qoray waxa uu sheegay in maamulka madaxweyne Farmaajo uu hoos u dhigayo joogitaanka ciidamada AMISOM ee gudaha Soomaaliya. AMISOM waxaa lagu aasaasay Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika Janaayo 19 2017 waxaana dhowr mar la kordhiyay xilli howleedkooda. warbixinta cusub oo qoray wargeyskan The Star ayaa waxa ay muujinaysaa inay jiraan warar muujinaya in madaxweyne Farmaajo uu doonayo in ciidamada Ethiopia iyo Eritrea ay soo galaan gudaha Soomaaliya iyadoo la doonayo in loo maro heshiiskooda ka baxsan shaqo howleedka Midowga Afrika. Kenya ayaa sidoo kale waxa ay walaac ka qabtaa tallaabadii baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya uu ku ansixiyay sharciga batroolka Soomaaliya kaasi oo golaha ku go'aamiyay nidaamka saami qaybsiga dakhliga dowladda Soomaaliya iyo 6 maamul goboleed ee hoostaga federaalka. Warbixinta The Star oo soo xiganaysa ila wareedyo dhinaca militariga ah ayaa waxa ay rumaysan tahay in Soomaaliya ay beegsanayso 15 xirmooyinka shidaalka gaaska dabiiciga ah ee lagu muransan yahay xitaa iyadoo uu taagan yahay kiiska muranka xuduud-badeedka kala dhaxeeya Soomaaliya. dhinaca kale warbixintan cusub oo qoray wargeyska The Star waxa ay rumaysan tahay iyadoo soo xiganaysa ila wareedyo dhinaca ammaanka in dowladda Ethiopia ay horumarinayso ciidankeeda badda oo howlgab ahaa tan iyo markii Eritrea ay ka go'day Ethiopia inteeda kale. Waxa lagu tilmaamay warbixintan in Ethiopia ay indhaha si weyn ugu hayso dekedda magaalada Kismaayo oo ay si fudud wax uga soo degi karto. dhinaca kale warbixintu waxa ay sheegaysaa in saraakiisha ammaanka Kenya ay rumaysan yihiin in tallaabada ciidamada Ethiopia iyo Eritrea lagu keenayo gudaha Soomaaliya lagu doonayo lagu takooro ciidamada Kenya iyagoo qaybta ka ah howlgalka Soomaaliya isla markaana lagu baabiinayo kaalintii dowladda Kenya ay uga jirtay Midowga Afrika. saraakiisha Kenya waxa ay rumaysan yihiin in dowladda Soomaaliya ay ku doonayso inay tallaabadaasi dowladahaasi u adeegsato sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen arrimaha doorashooyinka Jubaland oo la filayo inay dhawaan ka dhacaan magaalada Kismaayo.